dowladda Mareykanka ayaa isu diyaarinaysaa inay weerar kama dambaysa ku qaado dayax gacmeed madow oo aan la garanaynin oo samada sare maahaya isla markaana soo ridaya diyaarad kasta oo hawada sare tagta kaasoo loogu magac daray geesiga madow diyaaradihii dagaalka kala hortagay oo dhan soo daadiyay dankoodana warbixin faahfaahsan oo ay soo saartay wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka waxa lagu sheegay in fariimaha oo dhankooda u soo diray dayax gacmeedkaasi uu uga digay diyaaradaha iyo dayax gacmeedadu inaanay soo dhaafin hawada hoose ee dhulka waana arrin soo shabaada sababihii la hadalhayay sanadihii 60-yadii ee qarnigii dhaafay taasoo lagu sheegay in Mareykanku dayaxa dushiisa ku soo arkeen shay aan la garanaynin waxaana xigtay inay Mareykanku joojiyeen inay dib ugu noqdaan dayaxa dushiisa wixii ka dambeeyay bilowgii 70-yadii ee qarnigii dhaafay koox baarayaal oo hogaaminayay Professor Daniel Becker oo iyagu ku takhasusay culumta fiisikiska hawada sare kana tirsan jaamacadda Colorado ee dalka Mareykanka ayaa hore waxay u daaqadeen shay elektrooniga oo xanibaad ku noqday duulimaadada hawada sare shaygaas oo lagu arkay masaafo dhulka ka sareysa 12500 kilomitir waana shayga caqabada ee shucaaca ilayska ee uu sii deynayo ku soo ridi kara dayax gacmeedada iyo duulimaadada kale ay suuragal ka tahay inay halkaas oo kale gaadhaan warbixinta wasaaradda difaaca ee dalka Ruushkana waxa lagu sheegay in tan iyo intii uu aadamuhu gaaray adeegsiga tiknoolajiyada uu jiray heshiis muujinaya in la ilaaliyo waxyaabaha hawada sare lagu arko laakiin heshiiska waxa jebiyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo dhamaadkii sanadkii 2016 diyaarad xambaarsan waxyaabaha qarxa ku diyaariyay saldhigga ciidamada ee gobolka Ohio laakiin waxa goor dambe la ogaaday inay diyaaradaas lafteeda dusha kala socotay saxiimad uu dayax gacmeedka madow u soo diray maalmeer ka bacdina xilligii dhacdadaasi dhacday waxa uu dayax gacmeedkaasi qarxiyay diyaarad ay lahaayeen ciidamada cirka ee Mareykanka taasoo hadhaayeedii uu ku soo duldaatay gobolka Arizona waxaana sii xigtay inuu dayax gacmeedka madow ee aan haybtiisa la garanayn uu burburiyay oo soo riday laba kale oo diyaaradaha dagaalka oo ay isla Mareykanku leeyihiin labadan diyaaradood oo kamid ah kuwa ugu caasisan diyaaradaha ay ku qalabisay ciidamada Mareykanka mid kamid ahina taabacsanayd ciidanka difaaca cirka nooceeduna ahaa Thunder talabaadna ay adeegsan jireen ciidanka Marines ee Mareykanku waana dhacdadii ugu horeysay ee nooceeda ee dalka Mareykanka ka dhacda waana mid kamid ah dhacdooyinka qarsoodiga ah ee ay Mareykanku ka qarinayeen bulshada caalamka inteeda kale bilowgii bishii Juun ee sanadkii hore ayay ahayd markii dayax gacmeedka madow uu saxiimad culus u soo diray hawadeena sare ee dhulka u dhow masaafo ku beegneed gobolka Alaska saxiimada oo goor dambe oo isla maalinta ah ku qaraxday hawada gobolka Oregon ee dalka Mareykanka 6 bishii Juulaay ee sanadka waxa uu markale dayax gacmeedkaasi soo riday kubad wareega oo ololeysa taasoo kor dushay hawada sare ee bariga iyo galbeedka dalka Mareykanka 8 bishii Juulaay ee sanadkaasi waxa uu markale dayax gacmeedkaasi soo diray kubad wareega oo ololeysa taasoo kor dushay hawada sare ee bariga iyo galbeedka dalka Mareykanka maalintii xigtay ee 7 bishii Juulaay laba diyaaradood oo ka tirsan saldhigga ciidamada cirka Mareykanka ee Cardigan ee gobolka Colorado oo maaxay hawada sare ayaa la arkay iyagoo ololaya waxaana ay u kala burbureen sida buskudka oo kale dibaatada ka imanaysa dayax gacmeedka aan la garanayn ma aha mid ku eekay dalka Mareykanka oo kaliya laakiin 9kii bisha Juulaay ee isla sanadkaasi 2016 diyaaradda nooceedu yahay Soho oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee Russia ayaa la kulantay qarxin aan dignin hore lahayn oo kaga timi dayax gacmeedka madow xilligaas madaxweynihii Mareykanka Barack Obama waxa uu bilaabay barnaamijka loogu magac daray NROL oo lagu diyaarinayo hawlgal lagu qarxinayo dayax gacmeedka hawada sare loo geli waayay dhankiisana madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa heegi geliyay diyaaradihiisa dagaalka ee casriga ah ee noocoodu yahay Sukhoi T-50 si ay duulaan u qaadaan oo u soo burburiyaan dayax gacmeedka madow waana hawlgallo ilaa maanta qabya ah amaba haddii la fuliyay la qariyay suuragalna ay tahay in lagu guul dareystay